waa idin salaamay dhalinyaro, ma rabtaa inaad xirfad barato, laakiin iibsiga xirfadaasi ma kugu adkeed. Sidoo kale aadan haysan hab fudud oo aad ku bixiso lacagta. Xirfadley maanta wuxuu kuu keenay adeeg cusub. Adeegaas oo kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg ah, sidoo kalena ammaan ah aad uga iibsato koorsooyinka aad rabto xirfadley dhexdeeda. Haddaba si aan iskula aragno adeegaas iyo habka uu shaqeyn doono, waxaa u baahannahay hadda inaan aadno xagga iyo website-ka. Si aan u aadno xagga iyo website-ka waa inaan ku qoranaa xirfadley.com. Okay, halkan buuna keenay. Markaan ku soo qornay xirfadley.com, waxaad ku dhufanaysaa website-ka koowaad ee kuu soo baxa ee ay ku qoran tahay xirfadley iskaa wax u baro, iskaa u shaqeyso. Okay, markaad sidaa u dhufatid, halkan buu ku keenayaa. waa kan waxaa ku qoran xirfadley. maxaad rabtaa inaad barato? su-aashaas ku weydiinaya halkan baad ku qori kartaa. Marka sidoo kale halkan waxaa ku qoran halkudhiga ah iskaa wax u baro, iskaa u shaqeyso. gacantaada ku jeexo mustaqbalkaaga oo maalgasho naftaada oo hano himilooyinkaaga. kaasina wuxuu ahaa halkudhiga website-ka xirfadley. waxaa u baahannahay marka hadda inaan isla ambaqaadno koorsi ka mid ah koorsooyinka oo aan gadano, si markaas aan idinku tuso adeega cusub ee lagu soo kordhiyay xirfadley, idinkoo markaas isticmaalaya adeegaas kaasoo idinka caawin doono hab fudud sida aad koorso uga iibsan karto xirfadley. haddaba waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay courses. Okay, courses baan kusoo dhufanay. meeshan waxaa uga jeedaa inay ku qoran tahay courses. waxaa ku jira dhammaan koorsooyinka ku jira xirfadley baa halkan ku wada jira oo ku wada dhan. hoos haddaa u socoto waxaa arki doontaa dhammaan koorsooyinka xirfadley. kor haddaa u socotid waxaa arki doontaa sidoo kale. marka inaga hadda waxaan ka dooranaynaa koorsooyinka mid ka mid ah. waxaan rabaa inaan iibsado Somali Alibaba online course. marka si aan u iibsado oo aan u arko xogta iyo detailska waa inaan ku dhuftaa. Okay, markaan ku soo dhufanay halkan buuna keenay. halkan waxaa uga jeednaa Somali Alibaba online course. waa koorsiga aan rabno magaciisa. sidoo kale description yar oo halkan ku qoran. hoos baan u soconaynaa. halkan waxaa ku xusan video intro ah oo hordhac u ah koorsada. hoos markaa u socotidna waxaa ku arkaysaa description-ka koorsada, waxay ku saabsan tahay, waxay ka hadlayso iyo ciwaanadii koorsada waxaad ku qaadan doontid. qaybtan kale haddaa u imaano waa information-ka koorsada, inta ardayga qaadatay, sidoo kale inta cashir ay ka kooban tahay, category-ga, sidoo kale waxay leedahay shahaado oo koorso kasta oo ku jirta xirfadley waa mid markaas shahaado leh, uu qofku markuu dhameeyo uu shahaado qaadanayo. haddaba si aan u sii abaqaadno step-keena xiga, waxaan u baahnay inaan ku dhufano meesha ay ku qoran tahay take this course. Okay, halkan buu ina keenay. hoos baan waxaynu u daadegaynaa. halkan waxaa uga jeedaa waa meesha ugu dambeysay baan joognaa oo ah inaan koorsada maadaama aan soo dooranay inaan iibsano orderkeena aan gudbisano. halkan waxaa ku xusan email address. email address-ka waxaana laga rabaa inaan gelino emailkeena. sidoo kale meeshan ay ku qoran tahay create account password, isna waxaa looga baahan yahay inaad gashatid oo sidoo kale aniguna aan gashto passwordkayga. marka hadda waxaan gelinaynaa emailkayga, sidoo kalena waxaan dooranayaa passwordkayga aan ku qorayaa. Okay, hadda waxaan soo geliyay emailkayga, sidoo kalena waxaan ku soo qoray passwordkayga. waxay dhinacana u soconaynaa. waxaan imaanaynaa halkan waxaa uga jeednaa productiga aan dooranay oo ah koorsadan Somali Alibaba. sidoo kale qiimaheeduna halkan buu ku xusan yahay oo waa $30. marka waxay hoos baan u soconaynaa si aan iskula aragno adeega aan ku soo kordhinay xirfadley. Okay, adeega aan soo kordhinay waa kan, waxaa la dhahaa WafiPay. adeegan wuxuu u sahlayaa ardayga inuu si fudud ku iibsado koorsada, uuna ka maarmo wadadii dheereed uu koorsada ku iibsan jiray. haddaba WafiPay wuxuu kuu sahlayaa inaad EVC Plus wax ku iibsatid, sidoo kale saad wax ku iibsatid, sidoo kale sahal wax ku iibsatid. halkan waxaa ku qoran fadlan geli nambarkaaga sida EVC Plus oo ka bilaabanaya eber 6 iyo lambarkaaga aad raacinaysid. sidoo kale halkan waxaa ku xusan saad oo isna ka bilaabanaya 063, sahal oo isna meesha ka marneen oo ka bilaabanaya 090. kadib fariinta kuu soo baxda ka jawaab. Okay, marka waxaan u baahanahay hadda inaan isla aragno sida uu shaqeynayo. tusaale oo kale, adigu waxaad haysataa EVC Plus ama Hormuud. waxaad gelinaysaa lambarkaaga meeshan phone ku qoran tahay baad gelinaysaa, eber 6 baad ka bilaabaysaa adigoo markaa raacinaya lambarkaaga oo Hormuudka ah. haddii markaa aad haysatid saad, waxaad ka bilaabaysaa 063 adigoo markaas raacinaya lambarkaaga caadiga ah ee saadka. sidoo kale haddii aad haysatid Golis, waxaad ka horeysiinaysaa 090 markaas adigoo raacinaya lambarkaaga caadiga ah. haddaba anigu hadda waxaan haystaa Hormuud, marka waxaan u baahanahay inaan ka bilaabo 061. Okay, lambarkayga hadda anigu waan geliyay waa Hormuud, waxaana ka bilaabay eber 6. sidoo kale halkan waxaa ku xusan inaan soo geliyay emailkaygii
iyo sidoo kale passwordkaygii. Sidoo kalena Wafi Pay waxaan doortay lambarka aan haysto kaas oo ah Hormuud waana soo geliyay. adiguna waxaa laga rabaa lambarka aad haysatid ama markaas shirkadda aad isticmaalaysid lambarkeeda inaad gelisid adigoo markaa ka horeysiinaya furayaashan oo ah Hormuud eber 6 saadna sidoo kale aad ka horeysiinaysid 063 halka sahal ama golisna aad ka horeysiinaysid 090. haddaba waxaa u baahanay markaa intaa soo gashano inaan ku dhufano meeshan oo ah Pay Now. Okay, markaas ugu dhufanay taleefanka waxay noogu soo dhacday fariin ah EVC Plus ma hubtaa inaad u dirtid geelle lacag dhan $30. wuxuu ku siiyay laba option oo ah ha ama may. marka inaga si aan u iibsano hadda koorsada waxaan dooran doonaa ha. Okay, wuxuu yiri ma hubtaa inaad u dirtid geelle lacag dhan $30. fadlan biinkaaga geli. hadda waxaan gelin doonaa biinkayga. Okay, hadda waxa u jeedaa in lacagtii laga goostay. markaan isla aragno koorsada aan iibsanay iyo meesha aan ka arki doono. Okay, markii aan lacagta soo bixinay koorsadiina aan soo iibsanay halka buuna keenay si automatic ah. halkan waxaa ku qoran my account. hoos markaa u soconno halkan waxaa ku xusan koorsada aan iibsanay. waatana waa hal koorsi awal waxba iguma jirin laakiin hadda waxaa ku jira koorsadii aan iibsaday oo sida automatic aan u iibsaday. Okay, orderkayga waa kan waxaan iibsaday January 25 sidoo kale waa completed oo wax kasta hadda way dhameystiran yihiin sida u jeedaan. waxaan ku iibsaday adeega Wafi Pay waliba anigoo isticmaalaya EVC Plus. Okay, hadda markaa si dhameystiran oo waadax ah waxaan u iibsaday koorso anigoo markaas isticmaalaya computerkayga iyo taleefankayga. isla markaana adigoo isticmaalaya taleefankaaga kaliya waad iibsan kartaa. waagaag hadda waxay noo muuqataa koorsada Somali Alibaba course. haddii aan furo waxa u jeedaan ina hadda iibsaday oo ay tahay wali 0 complete. marka sidaas si lamid ah idinku aad u iibsan kartaan adigoo isticmaalaya taleefankaaga ama computerkaaga. adeega Wafi Pay wuxuu kuu fududeeyay adoo taleefankaaga haysta oo isticmaalaya adeega EVC Plus ama adeega Saad ama adeega Sahal inaad ku iibsan kartid koorso waliba aad kaga iibsan kartid xirfadley gudaheeda. waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen oo fahanteen waana mahadsantiin dhalinyaro. soo dhawaada mar kale.